daahir celisow caawa halkan marti noogu ah waaga cusub insha Allah khaatimo xafladeeda ka soo qayb galay waxaan halkan uga rajeynayaa ilaahay ummadda islaamka meel kasta joogaan ba caafimaad iyo cimri dheer khaatimada waa sanad guuradeedii waxa halkan la iskugu yimid ummad Soomaaliyeed oo calanka buluuga sidata oo meel kasta iskaga timid gobolada Holland waxayna ka yimaadeen Belgiya Belgiumka dhammaan dawladda wadamada dariska la ah Belgiya si fiican bay uga soo qayb galeen xafladuna si fiican bay u dhacday waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba maadaama ay gudoomiyaha ururka haweenka ee tayo maadaama ay gudoomiyaha ururka haweenka tayo ee wadanka Holland ahna ururka dugsiga ee tabaruca dadka masaakiinta meel kasta joogaanba ee Holland ka furan gaar ahaan magaalada Rotterdam waxaan leeyahay Soomaaliyeed waxa iga dardaarana maadaama caawa chance u helay daahir celisow aad buu mahadsanyahay waraysi iga qaadayo waxaan Soomaaliyeed idinkula dardaarmaya insha Allah inaad noqotid dad isku duuban oo gacmaha is haysta wixii dhibaateynaya ummadda Soomaaliyeedna laga qabto lagana hayo qof kastana uu wadanka u taagaya calanka Soomaaliyeed ee buluuga ah calan gobolaysiga waxaasna ma jiraan calanku waa mid qura wadanku waa mid qura madaxweynuhu waa mid qura marka Soomaaliyeed dhibaato wayna soo martay 12 sano ayaynu burbursanayn waxaan u sheegayaa Soomaaliyeed inay midowdo gacmaha is qabsato colaadda iyo dhibaatadana iska dayaan caruuraha la xasuuqayo maatada la laynayo in la joojiyo dhibaatada laga joojiyo dadka Soomaaliland waxaan u sheegayaa ee dariska khaatimo la ah inay dhibaatada joojiyaan gobolaysiga joojiyaan Soomaali waa mid qura calanka buluuga inaga dhaxeeya caruurta yaryar ee u dhalatay waqooyi gobolada waqooyi ee la jahwareeriyay ee la lumiyay ee maanta meel ay ku jahwareersay caawa khaatimo way joogan way ka buuxan dhalinyaradii Soomaaliland waxay ku leeyihiin calanka Soomaaliyeed ee buluugan itiraafsanaa sababtoo ah kaayagii 12 sano waa la itiraafi waayay marka waxaan jecelahay in dadka la lumin la jahwareerin caruuraha la jahwareerin dadka la isku dirin maanta dadkii Soomaaliland u dhashay Hargeysa Burco u dhashay xamar bay buuxaan oo ay dawladda wax ka raadinayaan ra'iisul wasaaraha arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka gudaha waa gabar Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliland u dhalatay waa foosiyo kuwa kale la shaqeynaya waa dad Soomaaliland waa dad soo shaqo soo doontay waxaan u sheegayaa dadka la dhibaateynaya Soomaaliland ay dhibaateynaysa ee ay ka qabanayso airportka haday xamar baadaan taas waxaan u arkaanaa xaquuq insaan daro iyo ay dadka burburinayaan dadka isku dirayaan Soomaaliya waa mid qura Soomaaliya ma kala tagayso Soomaaliya hal mid baa la iskugu imanaya calan qura ay leedahay tabaruca mid baan ka wadanahay wada tashiga mid baan ka wadanahay caruuraha yaryar baa ka xumahay la jahwareeriyay ee 12 sano wixii ka dambeeyay dhashay ee jahadii laga lumiyay ee Soomaaliland maskaxda loogu shubay ee markay meelaha yimaadaan ama iskuuladii tagaan ama jaamacadihii tagaan la yiraahdo Soomaaliland xagee ku taala ma itiraafsanine marka taasna aad baan uga xumahay anoo ah gabar Soomaaliyeed oo wax soo baratay oo waya araga ummadda Soomaaliyeedna ku dhex jirta dawladda khaatimada waxaan u sheegayaa waad midowdeen waad xoogsateen calanka buluuga wata wixii Soomaali diid ee ka soo horjeedana iska celiya dhibaato idin la yimaada idinkuna gardaraha ku doonanina dadkina la xaqsuuqayana hoos u eega iska celiya wixii dhibaato idin la yimaada dawladda habshiil waxaan u sheegayaa inuu dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ka joojiyo inuu isku dirka joojiyo inuu foolxumada joojiyo hubkiisa uu ku gadayo dawladda Soomaaliland uu lacag u siinayo warqadihii la hayo maxkamad lagu hayo waa inuu joojiyaa dhibaatada waa inuu joojiyaa dahabshiil waa nin Soomaaliyeed businesskiisu meel walba ka furan yahay xamar buu ka furan yahay markuu ka furan yahay Kismaayo ka furan yahay yu businesska iska xumayn yu dadka isku durin yu samaacada iska halayn waa inuu dhibaatada joojiyaa dadka eega hadaa business tahay businessku qabiil male وين الوطن النقطان الصوماليات بتحي واحد تاني الصوماليات مركز تحفيز بتقول هذا ولا جهالي كرا حفيز كاجا إن لحيره أو حمر لجا حيره أو خاتم لجا حيره أو بطلان لجا حيره أو قبل هذا قلمودك لجا حيره أو مال والبل لجا حيره ولا هالي كرا لكن الصومال لماذا اللي يجي يحقول إنسانك لكن أدوجنا تاجروا أدات يذهب شيل وكل الدردار ميا أديك يا شقالة حاجة دبعت التشوتشية العقد هذه اللي هيكسية فالحما أوجه سجن ومدة السلامين أنا إسكودرين هم نهاو كلاسين تدك يسوسوتشي رساقة إلهي كسيه وكل حساب طبيعي مالين معها كم ده الجهور كينيا تبرع العقد هو كوجا يسد إلا لا يهب كوجا وإن دتك مساكين تا اللي بعتيسن وجود ده إلهي بكسيه sababtoo dadka dhibaataysan meel walba way joogan waqooyi bay joogan xamar bay joogan gobolada dhexe joogan ugu deeq maaha inaad hub ku gadid oo foolxumo dadka u soo jeedid waan ku sheegaya taasna waa iga dardaaran haddaan hay saharan diiriya gamadid kuna nool wadanka Holland ahna gudoomiyaha ururka taya qaaraan haweenka
walaalayaal taas ay ga dardaarana waxaan mahad gaar u celinayaa daahir calasow sida sharafta leh aan ugu timid aad khaatimo uga soo qayb gashay sida Soomaali ugu taagan tahay sida Soomaali ugu halgamaysid baan Ilaahay kaaga baryaya adigana khayr inuu kula kulmiyo adiga iyo reerkaaga iyo caruurtaada kuwa kula midnana waa inaad ururiso isu keentaa calanka Soomaaliyeed waad aragteen dadkeeni bad bay ku dhamaadeen dhibaatay ku jiraan barigay ku dhinteen meel walba way ku daadsan yihiin South Africa inuu ku baabaanay Kenya inuu ku baabaanay Uganda inuu ku baabaanay waad aragtay Libya dadka siday u baabaayaan Yemen waad aragtay say u baabaayaan Soomaaliya mid ku wada noqda qabiiliga waxba iska tuura qabiil waxba ma tarayo qabiil waa forget wuxuu ku kordhinaya male waad aragtay reer Yurub say u midoobeen hal lacag bay yeesheen hal calan bay yeesheen waana qaarada isu tagay war inagoo Soomaaliya wiil iyo abtigiisa oo isku dhaqan oo isku diina ayaan gobol yar qofba meel ku xidhay gobolada hal la xidho ceeb ma nin walba meesha u dhashay isaga garanaya laakiin calanka buluuga iyo Soomaalinimada hal iskugu yimaado iyo madaxweynaha taas ay iga dartaa hooyooyinka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay gacmaha isqabsadaan inay meel kasto joogaan midoobaan haddana waxaan qabanayaa shir weyn dhaqso waxaan Rotterdam uga qabanayaa shir weyn oo ururka haweenka Soomaaliyeed aan iskugu yeerayo xuquuqda haweenka loo doodayo waxbarashada haweenka loo doodayo hablaha la dhibaateynayo ee yaryar xuquuqda loo doodayo insha Allah Soomaaliyana waan tagayaa hadii Ilaahay ka dhigo xuquuqda islaam xuquuqda haweenka ayaan u doodayaa hadii Ilaahay ka dhigo Soomaali weynay midowda gacmaha la isqabsadaa la wada heshiiya walaalayaal aadna u mahadsan tahay daahir calasow walaalayaal waa ku salaamaya boqolkiiba 4 Quraanka